moogtahay sidee ayuu malakul mowdku nafta uga qaaday nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam ka hor intaynaan bilaabin ku sali nabiga sallallahu calayhi wasallam sidoo kale ha iloobna lag saarta muuqaalka laguna soo bita saad wax badan faa'iido kadib markii rasuulku uu jeediyay khudbadiisa gootinta muslimiinta iyadoo xanuunku ku kordhay 3 habeen ka hor wuxuu aaday gurigiisa si ay u daryeeshay xaaskiisa Caaisha bint Abi Bakr waqti badanba kama soo wareegin ilaa uu u soo galay malakul Jibriil wuxuuna ku yidhi rasuulka Ilaahayow malakul mowdka ayaa ka dalbanaya ogolaansho inuu ku soo galo mana uusan ka dalban ogolaansho cid adiga ka horeysay nabi maxamedna waxa uu yidhi u ogolow Jibriilow markaasuu malakul mowdka soo galay wuxuuna yidhi nabadgelyo korkaaga ahaato rasuulka Ilaahayow Ilaahay ayaa ii ka soo diray inaan ku siiyo 2 doorasho inaad dunida sii joogto amba inaad Ilaahay la kulanto oo aan nafta ka qaado rasuulkina waxa uu yidhi waxaan doortay la kulanka saaxiibka ugu sareeya markaas ayuu malakul mowdka istaagay madaxa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuuna yidhi ruuxdii wanaagsanayd ruuxdii maxamed ibn cabdillaahi soo bax adigoo ka socda raali ahaanshaha Ilaahay iyo jannadiisa iyo rabbi raali ka ah oo aan ku cadhaysnayn markaas ay gacantii nabi maxamed dhulka ku dhacday ruuxdiisii daahirka ahaydna waxay u baxday rabbigeed haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo horuma u ogeyd qaybta commentiga hoose iigu sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhaado